السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال soo dhawaada meel walba aad caalamka ka joogtaan waa mar kale iyo halbeeg cashiro cusub oo ku saabsan suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex-ta sida caadiga ah waxaan mar walba idinla wadaagi jirnay cashiro kooban oo aan markaas u aragno kuwa u faa'iideyn kara bulshadeena Soomaaliyeed kuwooda fahmi kara afka Soomaaliga aan ku hadlayo iyo dhammaan dhalinyarta iyo dadka jecel in ay ka faa'iideystaan suuqan fursadaha taala ay ka shaqeystaan ay noqdaan trader isku filan si qof walba uu faa'iido uga gaaro suuqan sarifka lacagaha qalaad kusoo dhawaada saaxiibayaal magacaygu waa Yaasiin Cabdiraxmaan channelkan naga daawanaysaan waa halbeeg SOS haddii aad ka mid ahaan saaxiibadeena ku xiran page-keena YouTube-ka soo dhawow gacmo fur ayaan idinku soo dhaweynaynaa dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibada ardayda iyo dadka kale ee aadka inoogu taageera casharada aan soo bandhigno bulshadeena Soomaaliyeedna aan la wadaagno aad ayaad u mahadsantihiin saaxiibayaal caawa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan idinla wadaagi doonaa cashir yar oo kooban oo ku saabsan suuqa sarifka lacagaha qalaad aana u arkay qodob aad iyo aad muhiim u ah sida caadiga ah suuqan sarifka lacagaha qalaad waxaanu ka shaqeysanaa waa lacago ay wadamo kala duwan leeyihiin taas oo aan ku kala sarifno qadka online-ka maadaama marka lacagaha ay kala duwan yihiin wadamadana ay kala duwan yihiin waxaan qorsheysanay ama aan go'aansanay in aan idinla wadaagno dhaqaaqyada lacagaha ay sameeyaan iyo sida ay u kala saameyn badan yihiin iyo sidoo kaleeto lacagaha saameynta suuqa ku leh lacag walba sidoo kale inta ay dhaqaaqdo daily average-ka pips-ka ay sameyso suuqa iyo sidoo kaleeto marka aad rabtid in aad suuqan ka trade gareysid lacagahee kugu habboon isla markaasna isla maalintaasna aad suuqa uga trade garin kartid sida caadiga waxaa jirto ilaa ugu yaraan 28 beer oo lacagood ah ugu yaraan oo caalami ah oo inta badan dadka ay ka ganacsadaan 28kaas lacagood isku qaab uma dhaqaaqaan lacag walba lacagta kale waa ay ka duwan tahay wadan walbana waxaa jirta lacagtiisa xilli gooni ah waqti gooni ah oo xamaasad gooni ah leedahay haddaba intaasi waa hordhaca hadalkayga waxaan rabaa marka in aan idinla wadaago hadduu ilaahay yiraahdo website aad iyo aad muhiim u ah kaana caawin kara nidaamkan aad ku ogaan kartid lacagaha iyo sida ay yihiin okay website-ka waxaa la dhahaa marketmilk.babybips.com waxaan idinkula wadaagi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo shaashada hoos si inta kale aan fahmin ay ayagana meesha uga soo raacaan okay waxaan sameynaynaa marka website-ka waa kan website-ka markaad sidan usoo dhex gashid qaabkiisa hore waxa uu kusoo muuqan doonaa sidan aad u jeedaan ayuu kusoo muuqan doonaa waxa aan rabnana waa inaan marka aan caawa hadduu ilaahay yiraahdo dul istaagna lacagaha iyo sida ay u dhaqaaqaan iyo sida ay saameynta suuqa ugu leeyihiin guud halkan waxaa ka muuqda waa lacagaha dollarka ku lamaanan oo hordhac hore lagaa siiyey just qaabka hadda ay ku socoto meeshan waa day haddaarti daqiiqadaha saacadda iyo maalmaha waa bedelan kartaa 5 daqiiqo ama 15 daqiiqo ugu dambeeyay maxaa dhacay haddii aad rabtid inaad ogaatid halkaas ayaad ku dhufanaysaa kadibna wax yar ayuu wareeganaa please choose another range so marka waqti kale aan fiirino 1 hour oo kale good 1 hour marka imaano waa kana sidan GBP USD waqti xaadirkan waxa ay ku socotaa ayuu ku leeyahay buy wala gadanayaa ugu yaraanna change pips-keeda waa 35 pips wax ka badan muhiimadeena marka intaan hordhaca ma ahan tusaale kale marka waxaan rabaa inaan ogaado lacagta dollarka iyo Britain pound-ka Great Britain pound-ka inaan ogaado GBP USD sida caadiga waxa base ah lacagta GBP okay GBP USD ayaan halkan ka soo dooranay haddii aad si fiican u fiirisid marka meesha aan rabno inaan wax badan ka ogaano waa qaybtan si fiican indhahaada ugu fiiri waa qaybtan aan hadda ku sawirayo ayaan rabnaa in aan mid mid u dul istaagno good marka hore meeshaas markaa imaatid kadib waxaan tegaynaa volatility-ga meeshaan ay ku qoran tahay marka qaybtan volatility-ga ayaan rabnaa in aan ogaano so okay qaybtan keen marka volatility-ga ku dhufo kadib waxaan noo soo baxday marka lacagta GBP sida halkan aad uga jeedaan
Great Britain poundka iyo lacagta dollarka Mareykanka. Okay, qiimaha hadda uu marayo isbedelka saacad gudaheeda iyo sidoo kaleeto percentage ahaan markii loo fiiriyo inta ay noqonayso. muhiimadda arabna anaga marka waxa ay tahay in aan ogaano marka hore lacagtan GBP iyo USD maxay dhaqaaqoo samaysaa maalintii saacadahee ayaana ugu fiican markii la joogo suuqan sarifka lacagaha qalaad. Good. Halkan marka sida aad uga jeedaan meeshan sida idinkaga muuqato GBP USD average bibiska ay samayso per hour-ka waa 27.4 bibs. Si fiican halkan u fiiri waa hour saacadi ma ahan maalintii marka. Okay, inta markaa tagtid waxaa kuu soo muuqanayso maalintii marka laga soo tago saacadii in ay dhaqaaqdo 27 bib iyo wax adiga jajab 4 ayaa soo raacaya laakiin 27 nooga soo qabo. Good, 27 kaas bib markaa aragtid marka hoos u soo deg soo soco qaybtan hoose haddii aad si fiican isha u marisid ayadana waxaa kaaga muuqdo qaybtan hoose waxaa ka muuqdo waa saacadaha laga soo bilaabo saqda dhexe habeenkii saqda dhexe laga soo bilaabo ilaa 23 oo ah 5 saac habeenkii ama 11 habeenimo sida qof walba u yaqaano. Okay, waxaan sameynaynaa marka meeshan si aan u ogaano saqda dhexe habeenkii ilaa jaa waxaan haysanaa marka 24 hours. haddii marka sawirkan aan si fiican u fiirino GBP iyo lacagta Mareykanka aan dhahay lacagta GBP iyo dollarka Mareykanka waqtiga ugu fiican ay saameynta leedahay haddii aan isla fiirino waa marka ay tahay 12 saac galabtii ama 4 galabnimo ay xamaasadda ugu badan suuqa ay saameyn badan ay samaysaa. Good. sidoo kale haddii aan meeshan fiirino waqtiga labaad ee ku soo xigo waa 3 saac suuqa London markii uu furmaayo iyo waqtiga saddexaad oo ayadana ah qaybtan oo ah 5 saac habeenkii ama 11 habeenimo. waa saddexda waqti ay ugu saameyn badan tahay marka. isla sidoo kale waxaa soo raaca marka haddii aad si fiican u fiirisid waxaa soo raaca 2 saac subaxii 8 subaxnimo 12 duhurnimo 13 duhurnimo 7 saac 6 saac waqtiyadaas marka si aad u ogaatid marka waxaa muhiim ah inaad xoogga saartid aad dhahdid lacagtan waqtigee ayay habboon tahay ee si fiican u dhaqaaqda marka waa inaad meeshan isbarbar dhigtaa oo aad fiirisaa. tusaale marka 1 saac subaxii wixii ka horeeyo ilaa saqda dhexe habeenkii wixii laga soo bilaabo aan dhahay ilaa subaxii 1 saac wax badan oo hadda volatility badan ah ma lahan. tusaale haddii aan meeshan dul istaago qaybtan haddii aan inta falaarta muuska aan u soo dhaweeyo inay ii soo baxda ayaan rajaynayaa. sawiradan haddii aan ka dul leexiyo qaybtan sare kor ayaad falaarta wax yarsaan ugu dhaweynaysaa waa ujeedaan waa 34 bib ayay waxay dhaqaaqdaa markay tahay subaxii 2 saac subaxnimo ama 8 subaxnimo. isla qaybta ku xigta haddii aan tagno oo aan fiirino qaybtan ayadana imise ayay dhaqaaqdaa kaliya u dhaweey bis muuska waa 36 bib. Okay, waa labada waqti marka ay bilowga ay tahay ee suuqa London oo soo furmaayo 2 saac subaxina waxaa furma suuqa Frankfurt ee Jarmalka oo qaabilsan lacagta Euroda iyo sidoo kale 3 saac markii dhankeena ay ka tahay wadanka Jarmalka waxaa furma suuqa London oo ayadana markaas ay u tahay 2 saac subaxnimo sida aan rajaynayo. Okay, 10 saac galabtii imo marka ama 4 galabnimo waa marka ay ugu dhaqaaqa ugu xamaasadda badan tahay lacagtan GBP iyo USD waxa ayna dhaqaaqdaa 47 bib wax ka badan. Good, inta marka inta dhiman adinka sii dhameysta oo qof walba sidii asaga markaasi uu ku fahmi karo ama deganaan ay ku jirto ha ku fiirsado. kulli waxaan sameynaynaa dulmar guud insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. qaybtan aan u imaana marka qaybtan volatility bardayga ay samayso marka haddaan fiirino GBP iyo USD ama Great Britain poundka Ingiriiska iyo dollarka Mareykanka ayaan weli ku dhex jirnaa. volatility barday marka xamaasadda ama dhaqaaqa maalintii ay samayso average bibiskeeda muxuu noqon karaa. Good, average bibiskeeda waa 122 bib lacagta Ingiriiska iyo Mareykanka marka ay israacaan. halkan waxaa ku yaala marka si fiican indhahaada u kala fur qaybtan hoose waxaa ku yaala waa laga soo bilaabo
isniin to jimce haddii aad si fiican u fiirisid laga soo bilaabo isniin ilaa jimcaha okay tusaale marka sawirkan hortaada ka muuqda haddii aan mid u dul istaago qaybtan isniinta ah waxa ay dhaqaaqdo isla fiirino muuska meeshaas ugu sareyso ama geesaha aan ku aadiyo si haddii markaasi ay noo soo baxaan bibiska aan u arki karno good okay good waxba nooma soo baxayaan dabcan waxaan u jeednaa laakiin sida caadiga ah in maalinta isniinta ay tahay maalinta ay ugu xamaasada badan tahay oo ay dhaqaaqdo 145 bib good talaadada ayaa waxaa kusoo xigto maalinta khamiista ayaa kusoo xigto sidoo kaleeto jimcaha iyo talaadadan way iska soo daba dhow yihiin maalinta arbacada ayay xamaasadeeda aad u hooseysaa intaas haddaan isla fahno marka tanna waa maalmihii haddaan intaas isla fahno marka maxaan u gudbaynaa isbuuc ayaan u gudbaynaa marka so sawiradan aan iska bixiyo marka isbuuca markaan us gudubno aan dhahay bisha markaan u gudubno halkan waxaa nooga muuqdo sida aad u jeedaan waa volatility per monthga sms marka lacagtan so okay volatilityga ay sameyso per monthga ama bishi haddii marka aad fiirisid sawirkan guud ee hortaada ka muuqda haddii aad si fiican u fiirisid okay waqtiga muuqaalkan aan duubayana waa December 18 2020 waa waqti 4:58 PM oo GMT +2 ah okay janaayo marka aan ka soo bilaawno sanadka sida caadiga aan wada naqaano waa 12 bilood marka laga soo bilaabo bisha koowaad ilaa bisha labaad laga soo gaaro halkan ay nooga muuqataa marka haddii aan isla fiirino bisha ugu dhaqaaqa iyo xamaasada badan waa bisha Mars oo ay dhaqaaqdo 1788 bib sida caadiga bisha hadda lagu jiro waa December waxay ka sii fiican tahay October iyo Agosto iyo bilahan kaleeto sida Janaayo kale ay ka sii fiican tahay tabcan marka intaan waa tusaale hordhac guud aan ugu talagalay qofka in uu si fiican u fahmo uu dulmar ku sameeyo good isla sidoo kale marka lacagta u baahan tahay tusaale haddaan fiirino lacagta euro iyo ayadana NZD halkaas ayaad ku qoraysaa lacagta u baahan tahay kadib surgeon ayaad leedahay halkan ayay kaaga soo baxaysaa soo deg marka isla sidoo kale waa kana average-ka ay sameyso waa 22 bib wax ka badan per hour-kii saacadaha ayadana ay ugu fiican tahay waxa halkan ayay kaaga muuqdaan tusaale kale 3 saac subaxii markay tahay iyo 8 saac habeenkii iyo sidoo kaleeto laga soo bilaabo 7 saac duhurkii ilaa laga soo gaaro 11 saac oo ayadana xamaasadeeda ay aad u dhaqaaq badan tahay oo mararka ugu fiican ee fursadda laga raadsadana ay tahay good isla sidoo kale maalmihii ayaa halkan kaaga soo muuqanaya Isniin to Friday maalinta ugu xamaasada badan tahay ugu dhaqaaq badan tahay waa maalinta arbacada ah ugu yaraanna waxa ay dhaqaaqdaa waa okay aan fiiriyo marka 133 bib ay dhaqaaqdaa average-ka maalintii waa 104 bib bishii dhaqaaqa ay sameysana waa 776 bib haddaba marka maxay muhiim kuugu tahay inaad ogaatid marka lacagahan iyo sida ay u dhaqaaqaan qof walba oo ganacsada ah waxaa muhiim ah inuu qorshe ka leeyahay suuqan taasi oo la raba in uu ku darsado planning-kiisa ama qorshihiisa ganacsiga si uu u ogaado lacagtee ku habboon oo aan qaadan karaa iyo lacagta ugu dhaqaaqa badan ee faa'iidada badan markaasi aad ka samayn kartid tusaale marka aad tahay ganacsada dukaan leh ama xarun ganacsi leh waxaad ku qasban tahay in aad ogaatid suuqa wixii markaasi looga baahan yahay iyo wixii markaasi bulshada ay baahideeda ugu badan ay ku jirto si haddii shay markaasi muhiim ah ama meeshaas looga baahan yahay marka aad keentid ay dadka wada jeclaysan karaan loogana faa'iideysan karo balse haddii tusaale aan u soo qaato dukaan ku yaala baadiyaha oo aad geysay wax magaalada looga baahan yahay tabcan waxa waaye waa fikir caqliyan xataa aan mararka qaar iskeenaynin qofka ganacsadahana la rabo inuu ka feejignaado waxaan usoo qaadanaya tusaalahaasna waxa ay tahay maadaama aad tahay ganacsada suuqan raba inuu guul ka gaaro waxaa qasab ugu ah waa inaad lacagihii kala barataa horta dabeecadaha lacagaha ay sameeyaan sida ay u dhaqaaqaan saameynta suuqa ay ku leeyihiin waqtiyada ay sida fiican u dhaqaaqaan
intaasba adiga oo ogaanaya waxa ku fududeeyo ka ogaan kartaa website-kan aan kula wadaagi doono shaashada qaybtiisa hoose intiina kaleetana aad meeshan si fiican uga fiiri kartaan halkaas ayuu linkiga magaciisa ku qoran yahay waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen hadduu ilaahay yiraahdo ayna idin anfici doonto insha allah isla sidoo kale marka waxa uu leeyahay tusaale marka inta aan soo gabagabeynin muuqaalka lacag ayaan ogaaday kasoo qabo lacagta euro iyo NZD ayaan ogaaday qaybahan marka overview ayuu leeyahay performance ayuu leeyahay overbought and oversold ayuu leeyahay trend ayuu leeyahay tusaale hadda overview kasoo bilaabo qaybta ugu sareyso waa ujeedaan waxa uu ku siinaa laga soo bilaabo day to 1 year lacagtan xaalad noocee ah ayay ku sugnayd 1 day sell iyo buy labada midna ma jirin waxay u dhowdahay xaalad dhexe oo ah natural ama jawi iska degan inkastoo la jiro dhinaca sellka 1 week ayadana sidoo kaleeto waa natural ayay u badan tahay oo laakiin xigta dhanka buyga bishii sidoo kaleeto waa natural laakiin buyga xigta 3 months ka hadda dib ugu noqotid waa sell 6 months ka waa sell 1 year kan sidoo kaleeto waa sell oo ah si markaasi aad u ogaatid xaaladda guud ee lacagtan ay ku sugan tahay sanadkii ugu dambeeyay bilihii iyo isbuucii isla sidoo kale waxaa ogaan kartaa qaybtan ay ku qoran tahay performance oo ayadana aad ku qiimeyn kartid euro iyo NZD sidee ay isku saameyn karaan tusaale kale weeka maalinta bisha 3 bil 6 bil iyo 1 year oo ayadana hal sano ah maxaa isbedelo dhacay maxaa ku darsoomay positive or negative tusaale kale hadda plus 0.04% ay isbedel sameynaysaa oo ah positive week iyo kale waa isla sidii oo kale bishii waa isla sidii oo kale 3 months ka waa minus 2.00% just marka waxaad ka qaadan kartaa xog ku aadan lacagtan si aad wax badan uga ogaatidna waa ku muhiim in aad ku darsatid qorshahaaga ganacsi si aad suuqan guul badan uga gaartid overbought iyo oversell ayadana aan dul istaagno marka sidoo kale waxaad arki kartaa euro NZD relative strength index keeda muxuu yahay waa xaalad natural hadda aan labada dhinac midna jirin sidoo kaleeto waa oversold markaa fiirisid stochasticska iyo waxyaabaha indicatorska hadda meeshan ka muuqda Williams percentage arc oo kaleeto Bollinger Bands oo kale Keltner Journal oo kale waxaasoo marka macluumaad ah waxa lagugu diyaariyay waxay tahay just more information caalamka hadda aan ku jirnana waxa ugu awooda iyo ugu xooga badan qof alla qofkii haysto information waa timeka ama waqtiga macluumaadka okay trendigo kale marka aymaana marka jihada trendigan ay jirto lacagtan ma trend up aha ma down aha ama bullish ama bearish oo kaleeto hadii aan fiirino 5 SMA ga to 200 SMA ga waxa halkan nooga muuqda in lacagtan ay ku jirto natural marka laga tago 20 ga iyo 10 ka waa natural oo dhanka sellka isla sidoo kale buyga waxaa jiro 200 SMA ga iyo sidoo kaleeto 50 SMA ga good intaas markaa fahantid marka lacagta jihadeeda waxa ay ku sugan tahay xaaladeeda markaa soo ogaatid the pointiga maanta marka casharkeena uu ku saabsan yahay ee aan rabo bulshadeena Soomaaliyeed aan la wadaago aan jeclahay inay wax badan ka ogaadaan waa qaybtan volatility-ga oo ah qaybta ugu saameynta badan sababtoo ah lacagaha way kala awood badan yihiin mid kalena aan idinku daro lacagta marka la joogo forex-ka ama lacagta ugu saameynta badan ee ugu dhaqaaqa badan sideed lacagood waa lacagta GBP tusaale marka GBP lacag raaciyo kala GBP AUD oo kala hadaan dhaho GBP AUD hadii aan rabo inaan fiiriyo just tusaale marka waxaan ka soo qaadanaynaa per hour-ka volatility-geeda waa 35 bip hadii marka aan lacag kale ku bedelo fiir meeshan AUD iyo USD oo kala hadaan dhaho meesha ay ka ahayd 35 bip iyo wax ka badan GBP AUD USD maxay noqonaysaa marka per hour-ka waa 12 bip iyo something marka waa dareemi kartaa lacagta fiican ee dhaqaaqa waalida ah leh iyo tan adiga wax ku tari karto waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iideysateen casharkan kooban hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo nolol farxad leh
aad u mahadsantihiin saaxiibayaal mar kaleetana kusoo dhawaada halbeeg SOS Empire waxaan idinkaga tegayaa insha allah sida ay nabadgelo intaan cashar dambe oo kan lamid ah ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu